markii ugu horeysay haweenka ayaa deegaankaasi ugu dhinto mulraac adeeg la'aan dhanka caafimaadka ah in gabar dambe laga qaadi doonin Orbogays oo loo qaadi doonin magaalo kale taas waa goolka ugu weyn waa taas weeyaan goolka ku xigana waxa weey ilmo yar oo xanuunsan oo xalaq qandha qabatay ama dhagu xanuunayeen in aan loo qaadin magaalo baawur loo saarin ama qof waayeel oo qandha hayso oo garan waayay in dhiig karkiisa kacsan yahay in sokortiisa kacsan tahay inuu ama iska xanuunsanaanin oo ku dhiman sida ama inaan magaalo kale loo qaadin waxyaalaha koorka ah oo muhiimka ah oo community u baahan tahay haweenka ku nool Orbogays ayaa ka hadlay dhibaatada haysata waxayna xusuustaan haweenkii bilihii ugu dambeeyay ugu geeriyooday oo mulraaca deegaankooda gabadh amina faraxaji awad looran jiray waa isku dhimatay inantan walaasheed barbar fadhida saasoo kala loo qaado hargeysa ku dhimatay yaa kala cusbaa Maryam maxamed cabdi oomane iyaduna iyadoo umushay oo marka laba habeen umulan bay dhig baxday soo dhig baxaysay baa la qaaday halkan dhow meedho jeexana way ku nafbaxday idhiga bay tuluka idhiga waa ay kaysan la socoto marka ay ka baxdo la soo celi marka dadku aad bay soo geeriyoodeen ma fahanti hadda waxa jira gabadh magaalada uguba way ureysatay garwaa loo qaadan tilmid dilaacay waa laga soo xaadhay haddana isagoo ilmi 6 bilood dilaacay way qaadmi weyday wilna magaalada joogtaa gaari waa xamil weyday ilmin marba uu dilaacay u furmaya dhismaha cusbitaalkan ayaa waxa uu rajo weyn ku abuuray hooyooyin badan oo deegaankaasi degan Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood